xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iidaysto markii ay arkeen golaha wasiiradu mabaadi'da sugaya xurmada gobonnimada iyo midnimada geyga dalalka Afrika ee lagu xeeriyay axdiga ururka midowga Afrika OAU iyo xeerka dhismaha midowga Afrika AU ee 2002 iyo midka urur goboleedka IGAD golaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si adag u diidaysaa isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dowladda federaalka Itoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Somaliland gobolada waqooyi ee Soomaaliya taariikhdu markay ahayd shalay 1 bisha January